السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كلنتي وعن وناكسن إذا لهانتين با ميرو بان نجا داونسان كسر دوادا ورئيس جاره وأن ليرني مدحوينها سومالان مدني داهر ريال كاين إن مدحويني وجهرين كسر دو تلفزيون كا يونيفرسال تي في إن وربحين كوبنا نجسي حالة جود أي سومالان إمك كسر هاي. الحمد لله من شوقنا وأنا وضقبنا سومالان بلا يوم قبل بجرو wixii ugu dambeeyay dhacay waxa shilkay ka dhacay Erigabo barigeega ninka Jarmalka lagu afduubay ninkii waa kii la soo furtay nin kalena waa la qabtay afartii kalena waa la soo qabtay afartii kalena gacanta lagu hayaa ragaasi waxaan u arkaynaa rag argagixisa wararka ugu horeeya inkastoo dhamaystirnayna waxay sheegeen inay Boosaaso ka yimaadeen oo mishanka halka laga soo abaabulay waan isleeyahay kuwii Boosaaso wax ku afduubay qaarkood inay ka soo bixi doonaan baan sida wararka ugu horeeya hordhaca ay sheegayaan waana arki karaysaan oo argagixisadu abtirsiin horta male waa niman meel kasta oo joogaanba inay bini'aadanka dhibaan uun raba qoys male abtirsiin male meel kasta oo joogaan waa niman u taagan inay budcad noqdaan oo dadka dhibaan marka nasiib wanaag annaka waxay noo tahay inaanu ku guulaysanay hadday lacag kaga qaadi jireen Puntland inayna annaka lacag laaluusho la siiyay aanay jirin laakiin la soo qabtay iyagii oo dhan oo maanta gacanta lagu hayo Somaliland sideeda kale waa doorashooyin baa mustaqbalka sanadkan la qaban doonaa sidaad ogtihiin dawladaha hoose ugu horeyn doonto madaxtooyaduna ku xigi doonto horeyna doorashooyinka annaku waa u qabanay oo waan iyadoo nabad ah oo waliba dimuqraadiyad furfuran ah baan ku qabanay maantana taasaanu qaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo guud ahaan annaku tabartayda waan dadaalaynaa inkastoo beesha caalamka wax dhaqaale oo nu ka helay ilaa hadda ayna jirin laakiin marmarka qaarkood waxaan sinilaa malaha sidiina kaligeena isku tashateen waaba inta ad walaalihiina koonfurta ku dhaantaan waayo qolada beesha caalamka oo dhan baa daba ordaysa ilaa haddana dadkoogii bayna heshiisiin run ahaantii oo taladii baad moodaa inay inta badan cid kale ka sugayaan oo inaan iyaku war ma tashanaayo inaku gudaheena inaka haysanay oo aan jeclaan lahaa waliba inay nagaga daydaan sida annaku aan u heshiinay waayo Somaliland annaka isweydiinay inaanu nabad dhexdeeda ka sameeyno cid noo timid oo idinku sidaa yeelana tiri ma jirto talada dhabta ana waan jecelahay inaan fariinta u gudbiyo oo kulli waa dhageysanayaan ee la gudbooni wax weeyaan inay iyagu wada fadhiistaan isa saamaxaan gudahooda ka heshiiyaan markaasaan loo arki doonaa inay iyaguna wax noqon doonaan laakiin inta talada cid kale ay ku laalayaan waxa islaahay meel wax badan oo u suura galay ma jiro Somaliland annaku qaran ahaan waxaanu go'aansanay inaanu gooni isku taagno go'aanka ummadda ayaanu ka tarjumaynaa gooni isku taaga 60kiina ummadda ayaa midnimada samaysay oo haddii taariikhda dib loogu noqdo bariga reer Somaliland baa midnimada raadinayay oo walaalahooga koonfurta u tagay haddana go'aanka dambe ay ka qaatay inay dib u soo noqdaan waxaan u malaynayaa cid kasta inay xaq u leedahay go'aanka masiirkeega ay kaga talinayso oo ma ahin wax la isku qasbi karo taana waxaan jecelahay inay dhinaca kale ixtiraamaan waxaan u arkaynaa haddii midnimo ay shaqeyn weyday walaala isku agnool in la ahaado oo is ixtiraama oo aan dhibaato iyo dibindaabiyo midnaba aanan isku geysan intaana waxaan ka dhiganayaa hordhac wixii kala weydiinayso madaxana waxaad sheegteen in aad doorashooyin qaban doontaan mustaqbalka ma jirtaa waqti cad oo aad leedahay xilliga ayaan qabanayna doorashado kale komishanka annaka awood u leh waqtiga ay ku qabanayaan ay suuragal u tahay doorashada inay qabtaan waqti bay imika cayimeen inay waqtiga ku qabtaanna waa hawl u taala haddii waqtigu uu isbedelana iyaga laga sugayaa ma ahin go'aan xukuumaddu ay bedbedelayso ama cid kale ay bedbedelayso sharciga iyagu wuxuu siinayaa awoodda waqtiga ay doorashada qabanayaan ay ugu habboon tahay waliba doorashadayadan way ka duwan tahay kuwii hore soo qabanay kuwa hore diiwaan gelin ma jirin dadkana lama diiwaan gelin si ay u noqoto doorashadani mid sax ah oo lagu noqnoqon
iminka sharci cusub kaasaana dib u dhigista keenay ee waxay dib u dhici lahayd waqtigeega marnaba dib ugama dhacdeen laakiin shaqadaasaa dib u dhacana keentay madaxweyne dhowaan waxaad safarro kusoo kala bixisay dalalka ingiriiska iyo maraykanka adigoo la kulmay madax sarsare sida madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo wasaaradda arrimaha difaaca ee dalka maraykanka waxaa jiray qaraaro aa isla gaadheen maxaad nooga iftiimin kartaa waxyaabihii aa ka wada hadasheen wasaaradaha horta waxa ugu weynaynu ka wada hadalnay waxa weeyaan danahayaga sidaan isku kaashan lahayn caalamka dowladda weyn iyo tayarba way isku baahan yihiin baan filayaa oo marka waxaanu ka wada hadalnay danahayaga bal Somaliland sidii ay wax noola qaban lahaayeen ee aanu xiriir u yeelan lahayn mustaqbalka taasaanu ka wada hadalnay waxaan oran karaa waa bilow waana wax socon doona baan aaminsanahay halkana gabadhii aan kula kulmay halka secretary for Africa waati halkan timid iyadna wad maqlaysay maaragtaanay warkii ay sheegtay wuxuu ahaa inaan xiriir mustaqbalka aanu maraykanka wada yeelano haddii Ilaahay ilaahdo marka arrimaha iyagu de waxa sansniri faallo hoose ka galay maayo laakiin jawi fiican oo safgarada iyo safarkaas ku soo dhamaaday madaxweyne maxaa ka jira in maraykanku uu dib u soo degayo saldhigiisii uu ku lahaan jiray magaalada Berbera horta war aanan iminka taagnayn anigu ka jawaabi maayo oo saxaafiyiinta reer Hargeysa way weydiiyeen markaan soo noqday taa hal sugo waqtigeega maraykanka isaga la ikhtiyaarka meesha uu degayo cid ku qasbaysa inuu halka soo degiyo halkeer inuu dego maahin haddii aanu isla garanno wax uqdadoon ka qabno inuu maraykanku soo dego ma jirto laakiin go'aan iminka yaala meesha kaasi maahin oo iminka sheegayo madaxweyne inkastood la kulanteen labada dowladood ee dunida ugu waaweyn haddana maxaad oran kartaa maxaa hortaagan aqoonsi caalami ah oo ay hesho Somaliland go'aano la gaaray baa jira 93 markii UNISOM ay timid Soomaaliya oo la yiri Soomaalidu midnimadeeda hal isku hayo oo horta go'aano noocaas ah yaala UN-ta kuwaasi caqabadaha ay kamid yihiin waa caqabadaha ay kamid yihiin iyo caalamka laftigiisa oo mugdi badan kaga jiro waayo midnimadii 60kii aan qaadanay 5 cisho gudahood bay ahayd marka qaar badan baan caalamka garanaynba Soomaaliya iyo Somaliland ma laba dal bay kala ahaayeen taariikhdii horeba aan garanayn oo loolaha iyaga safarada aan ku jirno wax weeyaan in caalamka ku qancino u sheegno taariikhdayada waxa ay tahay waxaan aaminsanahay iminka Afrika iyo meelo badanba inay ku qanceen waxna way iska bedeli doonaan haddii muddo ay taagnayd waxaan rajaynayaa inay wax badan iska bedeli doonaan aqoonsiga Somaliland uu iman doonaa insha Allah dhawaan waxaa xukuumadda Somaliland ay la wareegtay gacan ku haynta magaalada Laascaanood iyadoo halka ay ka howlgaleen maamulka Somaliland maxaad oran kartaa muddada ay hayseen ayaad ku soo kordhiseen magaalada Laascaanood maxayse Laascaanood xukun la wareegideedu ku soo kordhisay Somaliland horta Laascaanood Somaliland way marka horeba ka tirsanayd waxaan ku sheegayaa horta inay maanta ka amaan badan tahay baan ku sheegayaa shalayto markay qolada kala joogeen waxaan kale ku sheegayaa waxyaabihii ugu horreeyeen ka bilownay asaasiga ah inaan xafiisyadii baaba'sanaa aan kulligood dayactirnay oo adiga laftigaagu tagi karto haddaad u baahato waxa kaloon annagu ku dadaalaynaa maadaama dalka iyaga uu yahay Laascaanood waxyaabo badan oo laga qaban oo halkan ka qabsoomay biyo la'aanta iyo waxyaabo badan oo nolosha asaasiga waxyaabahana waan ku talagalaynaa inaanu ka qabanno haddii Ilaahay ilaahdo mudnaanta koowaad baan siinaynaa haddii Ilaahay ilaahdo haddaynu soo laabano dhinaca magaalada Hargeysa dhawaan waxaa shaqadii joojisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada oo dhinaca garoomada Somaliland ka howlgali jirtay marka maxaad oran kartaa ay ka dhimi kartaa howlgalladii ay diyaaradu ku soo degi jireen ama ka duuli jireen garoomada Somaliland inayna wax ka dhimin adba wad aragtay horta kuwaasi waa parasite ku dul noolaa annaka dusheeda ku noolaa baan qabaa waxa la waxay u qaban jireen ummadan ma jirin garoon lacagtii offer flight charges kay urursadaan waxa la waxay ka qabtaan wadankan ma jiro laami ma sameeyaan dabdamis ma keenaan waxba ma keenaan waxay keenaan shaqaale yar yar oo lacagtii ay urursanayeen ay wax ka siiyaan waxyaabaha la isku hayay waxa weeye war lacagteeda aad urursanaysaan wax ma ka gelinaysaan dalkan ileen annaka magac ayagaad ku urursataan lacag aad leedihiin ma ahin marka dhimankaasi mar hadday diideen anigu waxaan qabaa inay iska tagaan garoonnada iyada annakaa samaysanayna dad aqoon laho diyaaradaha hagana waan leenahay baahi aan u qabnaay ma jirto
mar hadday xilkooga gudan waayeen ay sheegeen inay ummaddan u fulinayaan lacagtaan idiin ururinaynaa garoonnadaan idiin samaynaynaa ballankii aan la gallay kaasuu ahaa hadday ka baxeen annaguna inaannu iska shaqaysanno nilaahno culays kale uma baahnina iska taga taasi xaq inaanu leenahay waxaan aaminsanahay madaxweyne sidaad la socotid waxaa dhowaan wargeys ka mid a wargeysyada magaalada hargeysa ka soo baxa boggiisa hore lagu qoray in madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka ee Dick Cheney uu danaynayo in Somaliland aqoonsi la siiyo mustaqbalka ama xilliga xagaaga arrintaa wax warama ka haysa horta de wargeysyada wax badan bay qoraan waxay qoraan runna way noqdaan xanna way noqdaan marka aan sugno dee waqtigaa maanu gaadhinay bal wixii ka soo baxa laakiin anaaba tagay oo dee kolley inaanu xiriirkayga sii hagaajinno maraykan waana ka soo wada hadalnay waan sugaynaa wixii maqan aanan weli la gaadhin waqtigeygaan sugaynaa dhowaan waraysi uu siiyey cabdullaahi yuusuf universal t v wuxuu ku sheegay in dowladdiisu ay ogoshahay wadahadal ay la gasho Somaliland sidoo kale wuxuu sheegay in haddii ay Somaliland sidoo hadalka u dhigay ay joojin weydo duulaankii ku hayso gobollo aan lahayn ay tallaabo qaadi doonaan arrintaas sidoo aragtay madaxweyne wallahi anigu waxaan qabaa horta dadkiisa ha la hadlo oo sheeganayo inuu madaxweyne u yahay oo ha heshiisiyo Somaliland halkaas iska joogtaa maamul shaqeynaya oo kaayaga la mid ah doorasho lagu doortay dimuqraadiya sida aanoo laga doorto kale horta bal meesha uu joogaha ka sameeyo dadkiisana ha heshiisiyo Cabdillaahina waa nin dagaalka aad ugu boo aad u jecel adduunyadana dagaal uma maamulay horta aqli baa lagu maamulaa iyo garasho iyo ummadaha lagu maamulaaye dagaal lagu maamulo dagaalku waxa ugu dambeeya binaadamka oo qaado anigu waxaan qabaa dhulna inuu qabiil u sheegto haddana madaxweyne Soomaali ah u sheegto waa wax iska hor imanayo isnaqdinaya oo ducfi ku ah isaga baan anigu oran karaa markuu yiraahdo gobollo aanan la lahayn Somaliland qabiil dhulku ma raadinayso dhul xorriyad ay ku qaadatay 60kii iyo Somaliland ka hadlaysa kuma salaysno annaka taayadu qabaa'il iyo waxa kuma salaysno laakiin Cabdillaahi labada sidoo dadka uga wada iibinaya isaga sheegi doona marna inuu qabiil wax ku raadiyo marna inuu qaran raadiyo sidoo uu labada uga wada iibinayo shacbiga bal isaga ayaa tafsiirkiisa la weydiin doona madaxweyne Somaliland imika waa nabad doorashooyin baa ka dhaca axsaab baa ka jirta tartan baa la galaa koonfurta Soomaaliya xilligan colaado ayay ku jirtaa sidee baad u malayn kartaa ay ku soo gaari kartaa koonfurta Soomaaliya heerkan ay Somaliland gaadhay oo kale talaabooyinka wax muuga sheegi kartaa dadkan halkan ka daawanayo kale horta koonfurta Soomaaliya haddaan kala tagnay annagu cuqdadu ma qabno inay heshiyaan waan la jecelahay inay wax samaystaan waan la jecelahay halka aan gaadhnay inay gaadhaanna waan la jecelahay marka horeysa laakiin taladu waxay taalaa tii markii horeysa aan ku bilaabo in la fariisto oo la yiraahdo war maxaan isku haysanaa aan heshiino oo inagu gudaheena aan ka heshiino waxyaabaha ka qarinaya koonfurta Soomaaliya inay xaqiiqda u noqdaan waxa kamid ah waxay raadinayaan dawladdii Soomaalidan raadinayna iyadoona tii hoosaba aan la raadin horta tii hoose raadiyaan bal koonfurtii Soomaaliya raadiyaano maamul koonfurta Soomaaliya uu leeyahay isla ogol yahay horta ha samaystaan markaasay laakiin hadday ka qariso adoona taadii aasaaskii aanan hayn tu kaloona jirin baan sameynaya hadda tiraahdo marka waxaan u arkayaa ka dhuumasho laga dhuumanayo xaqiiqda waaqiciga ee meesha taala oo lagu qarinayo waxaan jirin oo la gaari karin oo ah midnimo Soomaaliyeed baan raadinayaa midnimada Soomaalida markii aan raadinaynay 60kii 5 Soomaaliyeed bay ahayd 2 Soomaaliyeed ma ahayn marka anigu taasan oran lahaa waxaan leeyahay ha fariistaan hayse saamaxaan sidii halkan la yeelay ha iska daay waxay isku khilaafsan yihiin dhinaca iskaga dhigaan waxay ku heshiis yihiin maaragtaanay ha isla gartaan ha ka soo bilaabaan xagga hoose maxaa la isku hayaa sidee loo heshiinayaa saamaxaad horta marka horeysa gudahooga waa inay ka sameeyaan ka bacdina waxa ka xun waa inay isla taabtaan oo mid xalilaan duulahay dhaad reer Somaliland badankoodu waxa dad badan oo kamid ah ku nool yihiin qurbaha halkan waxay ka daawanayaan Universal TV maxaad halkan talo iyo tusaale uga soo jeedin lahayd inkastoo jiraan qaaraano loo ururiyo goboladan bariga oo kale adoo fursadan Universal TV ku sii ka faa'iideysanay horta taa waxaan oran lahaa waanigii London iyo waxaan maray baan u malaynayaa Mareykan qoliyahan kala kulmay waxaan idhi laas canood inaan tagno
oo kama duwanaanayso kuwii hore joogay haddaan wax ka qaban weyno marka waxaan leeyahay reer Somaliland kalgacalkeega iyo waxtarkeega waxa weeye kulba cidda u baahan wax in la taro inaan wax wada tarno taa waxaan leeyahay qaaranka u soo ururiyaan iyakuna maaragtaanay hasku xidhnaadaan midnimadooda iyo wadajirkooga iyo wixii dalkoogana u qaban lahaayeen iyakuna inay qaybtooda ka ciyaaraan inta ay ka geysteenna waan ku amaanaya dhamaantood inta dibadda jooga muddadaad xilka haysay muddo ku dhow 10 sanadood marna waxaad ahayd madaxweyne ku xigan marna waxaad ahayd madaxweyne maxaa la oran karayaa Daahir Riyaale Kaahin uu u qabtay Somaliland horta way muuqataa ma qarsoon ma jeclaan ugu horta inaan faano leeyahay waxa ay waxaan qabtay laakiin markaad qiyaasto 3 doorasho qabtay iyadoo dalkan muddo 30 sano ah wax doorasho aan laga qaban ama 40 sano ku dhow oo dimuqraadiyadu dhacay oo nabad ku dhacay horta achievement ka weyn oo la sameyn lahaa ma jiro haddaad wasaaradaha wareysatana wasaarad kasta wax qabadkeegu 100% bay intii waliba madaxweynaha ahaa ayay korodhay baan qabaa marka de madaxweynuhu ma koobi karo ma ogtahay waxa uu qabtay wasaaradaha qabta waxa laga garan karaa marka wareysi aad la yeelataan wasaaradaha maxay qabsoomay muddada waxaan garanayaa madaxweyne ku-xigeenka markaan ahaa Allahu naxariistay madaxweynihii hore wuxuu ii diray burco markaa khilaaf aw jiray oo beelaha burco is khilaafsanayeen maamulkeega ana soo sameeyo heshiisiye dadkii oo soo dhisay ergaba la diro ka daalika ahayd iyada laftigeega nabadeynteeda ana intaasoo bilood baan u joogay maamulkiina aan ka soo hirgeliyay marka waxyaabahan qabtay way badan yihiin baan oran karaa laakiin ma jecel inaan anigu ilaahdo taasan qabtay iyo taasan qabtay Somaliland waxay ku lahayd sumcad dhinaca xorriyadda tacbiir ama xorriyadda saxaafadda laakiin maxaad oran kartaa sumcadda Somaliland way waxyeelaysay xidhistii raggii siyaasiyiinta la xidhay iyo journalistkii reer Soomaaliya ahaa ee laga ceyriyay wadanka run ahaantii waqtina waanu siinay kuwa laftigooga iyakana waxaanu diidaynaa war nabadayada wax kale idinku ku darina oo maaragtaanay dhibaato u geysanina laakiin waqti ku filan baa la siiyay waqtigii marka hore loo qabtay xitaa kuma tagin ka badan bay sii joogeen nimanka siyaasiyiinta la xidhay horta sharcigii ayuu gafeen baa xidhay cid iska xidhay ma jirto nin ka mid ah qoladii samaysay buu ka mid ahaa dastuurka qortay ee diyaarisay qodobadii uu sameeyay jabiyay kuwii baa lagu qaaday aniguna madaxweyne ahaan markii dambe baardan baan u fidiyay afis baan u fidiyay oo sii daayay marka waxaan qabaa qofna lama xidho dalkan qof aanan gaf sharci gelin oo maxkamad horteed laga gacaday siyaasad loo xidho dalka iyaga mana dhacdo taasi علاقاتك جيبوتي وسوماليلاند way wanaagsanayeen ilaa xad laakiin waxaad u malaysaa mar dhaweyd oo dhacay khilaaf inay Soomaaliland ka joojisay Djibouti xataa ay adhigii ka joojisay loo diri jiray taasi maxay saameyn ku yeelanaysaa horta way tagaysay laakiin de horta xagga dhaqaalaha tartanka umada way iska jireen Djibouti annako inaan culuno marna baan ugu jeclay madaxweynahan markaan ku sheego waayo maanu kala maarano isku mid baan nahay dad isku mid aan nahay ixtiraam badan baan u hayaa inaan marnaba culuno ma jeclin aniga albaabka xaggayga uu ka furan yahay di xagga laga furana waxaan nin walaala ninkan waan isku fiicannahay Ismaaciil rag iskaranayana waan nahay أنا waxaan qabaa mar kastaba inaanu xiriirkayga u wanaagsanaado taasaan anu jecelahay insha Allah waxaan rajaynayaa in hadii madmado oo galay aan iska dhamaysan doono mustaqbalka hagaag daawadayaal guud ahaanba intaa waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii gaarka ah ama wareysigeenii gaarka ah ee ku saabsanaa wareysigii aanu la yeelanay mudane Daahir Riyaale Kaahin oo aanu kala yeelanay xarunta madaxtooyada Somaliland tani inta hawada dib ugu kulmi doono waa bahda Universal TV magaalada Hargeysa oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh